بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan si gaar ah u salaamayaa ummadda reer Awdal afartii February ee shalay waxaa iskugu soo baxay dhalinyar damiir iyo dhiig iyo dadnimo leh oo rabay in ay intay adduunyada ku nool yihiin inay xoroobaan oo aan cabsi ku jirin oo cidda ay ka baqaan oo keliya ilaahay tahay ayaa soo baxay dhalintii waxay igu aan muuqaalla ku arkay in la ururiyey in qaar la dilay oo gabadh uur leh in la dilay in qaar la dhaawacay in qaarna la xidhxidhay dhiigga carruurta reer Awdal in badan oo horuu daatay mar dariiqaa lagu dilay mar stadiumka meeshii lagu ciyaarayay baa toos loogu dilay dadkii dilayna way iska tegeen hadda ku calanka Soomaaliyeed sita waa la toogtay haddana waa idinka arkayo qaar baa la leynaya inta aad habidka tihiin carruurtiinna sidaasaa loo leyn doonaa waxaad mooddaa dhiigga carruurta reer Awdal in la xalaashaday maalinta aad dhadhan iyo dhiig iyo damiir yeelataanna waxba booram oo keliya kama qaadi karaan waa haddaad kacdaan ood hebedka nimada aad ka qaadaan taasina waxay idiin caddaynaysaa mar labaad aan idinku celiye raggii shalay 150 laga dilay maanta waa lagu dhicilaayay buuraa la joogaa lagumana dhaco haddii lagu dhacana waa la jabi doonaa waayo ciidanka Somaliland ka isku sheegayaa wuxuu u qaybsan yahay jiliba yaryar iyo kuwa mishahar yar oo lacag un la siiyo lagu hayo oo aan wax kale oo ay meesha u joogaan jirin nin waliba markay rasaastu cuslaato uu iska tegi doonaa waxa weeye markaa ciidanka sidaas inuu carruurtiina idinku hordila maaha sideedaba baadil xoog baa baadilka la iskaga celiyaa qaniya kaa goysa nin aanay warankaagu gelinna ku dhegaysan maayo weedhaadu ma gasho waxaasoo mahmaha waxa bixisay Soomaalida waana run waayo Soomaalidu been ma mahmahdo waxa weeye waxaan la hadlayaa nimanka horgalayaasha ah ee booliiska sheeganaya ee boqolka yar ee dollar ku shaqeeya ee hanka yar leh ee carruurtooda rasaas ku jiidaya dilaya ama intay qaadaan hargeysa u geynaya si loogu abuse gareeyo loo faraxumeeyo waxa weeye hadda waqtigu mar hore hawadu way isbedeshay ninka imikaba horgala oo ay u shaqeynayo bari way tagi doonaan dhulkan qabaa'il baa loo kala bixi doonaa isaaqu meel bay yeelan doonaan intuu ilaahay siiyey bay ku ekaan doonaan inta kalena intii ay dhaceenna waa laga qaadi doonaa inta kalena waa laga kaxayn doonaa adigu haddaba haddaad horgalo tahay halkee tegi doontaa ma iyagaad raaci mise waxaad is leedahay wax kasta sameeyo jilib baad ku hoos dhuuman iminkaba nin kasta oo qoladaa u shaqeeyo hawadu way isbedeshay cagaha aayar dhigo carruurtaada iyo carruurta ummadaada qoriga iyo rasaasta iyo qabqabadka iyo xeraynta aad u adeegayso dad kale iska daa waxaa kaloon u sheegayaa dadka isaaqi dhulkaa jooga nabadgelyadiinu hadda kadib waxay ku jirtaa baan filayaa inaad dhulkiinu iyo hooyataan waayo hadda kadib
dee sidaa lagu wada joogi maayo ila tahay meel baad leedihiin meeshiina inaad tagtaan haddaad wanaagsan tihiin inaad halkiinaa ku ekaataan haddaad talin karaysaan inaad isku talisaan haddaad wax qaban karaysaan inaad wax qabsataan waxaad qabateen annagu maanaan arayn dowladdii soomaaliyeed ee annaga waxna bartay ee bilaashka nagu bartay idinkaa la dagaalamay oo cadow u soo kaxaystay waxaad dadka bartaanna ma jiro anigu jaamacadda camuudeed iyo taargeysaadba waan ka wada dhigi jiray kuwa sanadka u sarreeya ka baxaya wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaanay warqad qori karin iska daa inay sharci ka sheekeeyaan iyo inay loo ka sheekeeyaan ma qori karaan they can't write a letter waxaa ayaad ku faantaan waxaa ayaad dadka ku dulmideen waxaa ayaad dadka ku disheen hal jid maydaan samayn wax dadku yabyabta mooyaan wax allaaliya waxaad ummaddaa ku soo kordhiseen ma jiro qolada markaa idin daba socota waxaan idiin sheegayaa ilaahay baa adduunka idin keenay ilaahay mooyaane cid kale ha ka baqila cid kalena ha aaminina waayo taladaada idinkaa yeelan karaa dadnimada idinkaa isku samayn karaa xoolaha idinkaa dhaqan karaa dekadaha idinkaa samaysan karaa anigu markaan yaraa boorama diyaaradaad dul mari jiray garoon diyaaradeed bay lahayd seeraha ayay diyaaraduhu degi jireen anigoo yar ingiriiskii bay diyaaraduhu degi jireen haddana waxa weeye dekad male garoon diyaaradeed male wax allaaliyo waxay leedahay maalinkaa maanta waa imise sannadood waxaan ka sheekaynayaa 70 sannadood wixii ay lahayd ayaanay maanta lahayn iska daayina horumar iyo waxaa ka kaalay wixii ay lahayd bayna lahayn garoonkii diyaaradeed baanay lahayn tuulooyinka soomaalida koonfurta way leeyihin doolow baa leh iska daa wax kaloo halkaa ayaa la idin gaadhsiiyey oo la idin gaadhsiiyey waxa idin gaadhsiinayana waxa weeye jilib iyo xin hoostaa baad leedihiin war jilibku idinma anfacayo horta ragga markaad xagga sare iska soo dhicisid ragga iska soo reebtid haddaad jilib sharaf la tahay markaa ayaad hoos loo soo noqdaa kuwa kale haddaad maquunin karayso sharaf leedahay maquunin kartaa laakiin marka aad addoon tahay ee addoon kalena ku dul yaallo waxba ma taraysid xornimaad u baahan tihiin addoonnimo uma baahnidina hablo yaryaroo waxaan arkaya shana oo leh annagu xornimaan u baahannahay xornimaad adeer u baahan tihiin waa runtiin qof kastaana xornimada ugu baahanyay waxaad lahaydeen qori baan qaadaynaa haddaad qoriga qaadaan anigoo gaboobeyna waa idinku jiraa waa idinla qaadaya ballan baan idinku qaadaya waa idinla qaadaya waxa weeye dee qorigu idinku waad tidhaahdeen qorigu gabadhna kuma qorna cajuusna odayna kuma qorna dhallinyarana kuma qorna qorigu wuu dhacaa cid kastana way ridi kartaa qori kastoo dhacayna wuu dili karaa waxa uu ku dhaco lama kala gacmo waaweyna lama kala nafa badna lama kala maxaanku idhahdaa qoriye badna meel walba qorigu wuu yaalla waxa weeye qolada waxaan u sheegayaa hargeysa ka timid carruurtanaad kaxaysanaysaan ee hablaha iyo inamada iskugu jira kuwaa maanta aad xidheen halkoodii ku daaya waannu idiin sheegaynaa kuwa lacagta idin siiya sida kuwan ingiriiska horena waannu idinku sheegi jirnay maantana waannu idiin sheegaynaa haddaad sii dayn weydaan berri haddaad sii dayn weydaan waa qori doonaa waana naqaanaa meelahan tago iyo meelaha wax laga odhanayo qolada waxaan idiin sheegayaa mar labaad waxaan ku celinayaa qolada u nacamlaynaysa baadilka hargeysa ka yimid waxaan idiin sheegayaa cidlaad ku soo dhacaysa haddaad carruurtaa wax yeesheen
ballan waxaan idinku qaadaynaa markay wax isku toosaan waa laydinka goynaya jilibna ma hoos gali doontaan jilib idima celin doono runtaan idin sheegaya haddaad isleedihiin wax kasta iminka sameeya hadhowna jilib baad noqoni iminkana maxaan ku dhahdaa isaaqa wax u dila oo u duleeya jilibku idinma celin doono ballan baan taa idinku qaadaynaa waqtigiinniina wuu dhammaaday waanu dhacay